أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dalka dibadda waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meesha iga daawanaysaan ama iga dhageysanaysaan waa Khadiija Aadam Official kusoo dhawaada channelka waa channelkiini kusoo dhawaada gacmo furan qalbi furan insha Allah niyad saafi ah salaanta ka bacdi marka waxaan u mahadcelinayaa Allah weyne waaxidka caafimaadka nagu soo gaarsiiyey halkaan igu soo celiyey inaan video cusub soo duubo Allahaasaan u mahadcelinayaa Ilaahay baa mahad iyo shukr u sugnaatay gaar ahaan walaalahayga Soomaaliyeed ayaan u mahadcelinayaa oo i garab istaagay oo markasta yacni mahadcelintooda kama daali doono shukran ayaan leeyahay intii ila joogtay oo subscribe ii saartay waa mahadsantihiin intii yacni igu cusub waa soo dhaweynayaa waa mahadsantihiin intii ii saari doontana waxaan leeyahay shukran maanta waxaa noo wadaa insha Allah qisaan noogu sheekeyn doonaa haddii alla yiraaha rabbi raalli ka noqdo qisadaas oo ka dhacday wadamada adduunka ka mid ah ayaan ka sheekeyn doonaa haddii ilaahay yiraaha waxaa la yidhi ninbaa waxaa la yidhi riti baa ka dhumay ama awr baa ka dhumay marka awrkii uu raadiyey raadintiisa ku fogaatay uu soo laabtay reerkii buu kaxeeyey ilmo 3 ciyaal iyo hooyadood lahaa oo ilaahay sii haystay markuu soo waday waxaa la soo baxay anaga dhanaan raadinaynay way soo baxeen way raadiyeen way daaleen markay raadiyeen way daaleen waxaa dhacday wuxuu dhahay heemadba u wadateendha ama heemad ninka soo yaqaana wuxuu yidhi waa daasheen heemad intuu meel ugu dhisay buur hoosteeda ugu dhisay yacni dadaal bay ka heda isaga wuxuu isdhahay maamada iyo hanastaano oo dhahay halkaan sii degnaada oorkii ama ratigii baan raadinayaa xilligii alla iisoo sahlan waa soo noqon doonaa markuu raadiyey oo baxay waxaa dhacday roob badan aa imaaday roob badan aa da-ay roobkii marka wuxuu isdhahayaa reerkii ama roobka qaataayo waxaasuu ka fikiraayey marka waxaasuu ka fikiraya inuu soo baxo soo horfiiriyo damcay marka roobkaa sii weynaaday waa imaan waa u tegi waayey marka halkiisu iskiisa sugnaayo yacni roobka meel ka galay halkaasuu u joogay waxaa dhacday markii dan roobka markuu dhammaaday wuxuu isdhahay reerkii baa soo fiiri reerkii wuu soo aaday wuu soo baxay wuu soo meeshii imaaday meeshii hadduu imaadaba ama dee yaaba deganba wixii dhan roobaa la tegay roobaa qaatay yacni waxaa lagu daray daadka marka waa la raadiyey marka dambe ciyaal meel ku dhidhinteen oo arkay uu soo qaaday meel buu keenay hooyadii iyo cunug kaleeto meel iskula dhigin oo dhinteen buu tegay dadkii saasay ku dhammaadeen haddii ooyinu meel iskala fadhiistay markaas haddana wuxuu iska dhaadhiciyay ooyin waxma taraysee dadkaa bal aas qabri buu u qoday dadkii waa soo aasay markuu aasay wuxuu isdhahay bal waayahay haddii dadkii aaweysay oo ay dhinteen koley ilaah baa u qadaray inay saas isku dhaaftiin uu dhahay wuu tegey wuxuu raadiyey ratigii buu raadiyey wuxuu socdo ratigii buu arkay markaasuu ku orday uu soo qabtay markuu isdhahayay haraanti oo labadii indhoo dhexdooda ku dhuftay lagu dhuftay haraanti ninkii meeshii buu ku indhabeelay ilaah baa u qadaray waa qadar ilaahay qadartana haddee yani way kugu dhacaysaa haddii ilaahay kuu qoro marka ninkii uu iska ooyay meeshii uu iska fadhiistay muxuu samayn karaa indhoolou noqday ninkii indhihii baa saas ku tegey ninkii waa indhabeelay Allah baa u qadiray
marka asigoo iska weynaa meesha iska fadhiyo nin u imaaday war maxaa kugu dhacay oo u sheegay markaasaa qisadiisa ugu sheekeeyey. marka meeshii la joogo waxay ahayd meel yacni islaamka dad muslim bay ahaayeen. marka wuxuu dhahay dadka ninka u weyn muslimka aan kuu geynaa soo bax. ninkii waa garwaday waa u geeyey. wuxuu dhahay nin yahoo ninka boqorka meesha ka ah ilaah baa boqoro baari aha allah weyne waaxide boqorka lama jiro laakiin haddii bil-aadanka boqor bay iska samaystaan yacni dadka meesha jooga ninka u weynaabaa ninkii u geeyey. ninkii baa wareystay wuxuu qisadiisa ka wareysuu dhahay qisadii ka wareystay. markaasaa war saas haddee kugu dhacday maxaad dareemaysaa uu ku dhahay. markaasuu dhahay hadda ilaah baa ii qoray ciyaalka iyo hooyadii allaba isiiyey haddana allah iga qaatay xoolaha kalena allah isiiyey allah iga qaatay indhahayga iyo waxaan yani aniga oo dhanba ilaah baa isamayso ma ahan. marka hadda maxaad dareemaysaa? waxaan dareemayaa hadda farxad baan dareemayaa. yani ninkii nin ilaahay iimaansi buu ahaa. wuxuu dhahay waxaan dareemayaa farxad. markaasuu dhahay adigoo xoolihii kaa tegay oo ciyaalkii kaa tegay oo waxaad indhahaaga la waayey indhahaaga aaweysay wax ku arki lahayd miyaad faraxsan tahay? wuxuu yidhi waan farxasanahayoo carabka aan kugula hadlayo allah isiiyey indhahaada allah isiiyey allahaas weyn oo waxayd qadartiisana inaan la dhaafi karin aan aaminsanahay. marka saasaan ku faraxsanahay. haye marka ninkaas ilaah baa iimaankaas geliyey maasha allah tabaaraka allah. marka saas inaan ilaahay ugu kalsoonaano oo wax kasta yacni ilaahay wixii nagu dhacabo inay kun sano naga weyn yihiin inaan ogaano yani aan ka fahmayno sheekada. wixii kugu dhacaya kun sano inay kaa weyn yihiin qadarti ilaahayna inaan la dhaafi karin ayaa meeshaas ka cad. marka walaalahayga soomaaliyeed qisaas ayaa la wadaagaya way ka faa'iidaysto allah naga dhigo oo qadarta ku qanca. qadarta inaan ku qanacno allahna fahansiiyo. wax kasta way qoran yihiin wixii alla ku siinaayo waa qoran yihiin waxaad keensan kartid ma laha. marka qadartaas inaan yani aan ku qanacno oon ogaano inaan ilaahay yani amarkiisa la dhaafi karin inaan ogaano ayaan idinla wadaagayay. intii og waa og tahay intii kalena insha allah allaha fahansiiyo allahana fahansiiyo kheyrkana allahana waafajiyo. walaalahayga soomaaliyeed subscribe like share iyo dhaha sidaad iigu dhihi jirteen mar horeetaba haddana insha allah waa idinka codsanayaa. qisada waa inoo dhamaatay insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.